xisbiga maxaafadka ee kulmiye ayaa xafiisyo cusub ka furtay deegaano ka tirsan gobolka Daadmareer iyo Togdheer. Deegaanadan xafiisyada cusub laga furay ayaa waxaa ka mid ahaa deegaanka Ceelsame, Baarcad, Xayir, Suryo, Balihiile, Labiguun, Iskudhoon, Sanjare, Bilcilweyso, Waraabeeye, Jaamalaaye, Bisiqa, Xangeeyada iyo Qabri Goroda. Xafiisyadan cusub ayaa furitaankooda waxaa soo abaabulay bulshada ku dhaqan deegaanadaasi oo muujinayay taageerada ay hayaan xisbiga talada dalka haya ee kulmiye. Ugu horreynba waxaa hadalka iskaga daba maray odayaasha iyo cuqaasha dhalinyarada ka soo jeeda deegaanadaasi waxaana sheegeen inay cod iyo cududba la garab taagan yihiin xisbiga talada dalka haya ee kulmiye. waxaana hadaladoodii ka mid ahaa horan baan idinku soo dhaweynaynaa si fiican soo dhaweyn wacan dadka arkaysa waxa weeyaan populationkii idin taageersanaa ee xisbiga inuu soo baxo insha Allah ku tala galay halkan maxaan ku waxaanu ka furnay xafiis laba xafiis oo leeyahay xisbiga kulmiye maanta annaga oo ka soo ambabaxnay gobolka Togdheer. marka hore xisbigan kulmiye ayaynu ku soo wuxuu inaga rabaa cod taageero leh oo aynu codkeena si wacan marka hore xisbiga waa kulmiye rag iyo dumarba kulmiye aynu nahay waxaan ku shaarinayaa dadyo inuu dadka dhamaaday oo maanta muuse kursiga geeyo dhaartu hadhow ka xigta inaan codka iyo cadiyada iyo wax qabadkaba mustaqbalka madaxweynaha Muuse dad yahay waxaan idin sheegayaa dabkii baxaya ayaa dab lagu qabsadaa sida ogtihiin ama aad doorateen soo xisbiga kulmiye ma hidin waxaan ugu soo dhaweynay hore soo dhaweyn isagoo oo aan naga dalbanin anagu aanu halgan fiican ugu haynay iyo soo dhaweyn iyo inagoo siinayna codkayaga iyo cududayada iyo Balihiile wuxuu go'aan ku qaatay inuu codeeyo Muuse Biixi Cabdi iyadoo bila shuruuda aqal furka waanu soo dhaweynaa haddaan nahay isku dhan waanu taageersanahay soo dhawaada waanu idinku mahadnaqaynaa waxaanu idinka doonaynaa walaalayaal wax kale dooni mayno inaynu dooranno Muuse Biixi Cabdi oo gudoomiye musharaxa saasaanu wadaynaa xisbiga saasaanu ula soconnaa kulmiye waa la soconnaa waa la shaqaynaynaa waa soo dhaweynaynaa. xildhibaan Dayib oo ka mid ah golaha guurtida Soomaaliya iyo Cabdiqani Cali Khalaf oo ka mid ah gudida kaambeynka gobolka Togdheer ayaa xariga ka jaray xafiisyadan cusub sidoo kalena bulshada deegaanadaas uga mahadnaqay taageerada ballaaran ay u hayaan xisbiga talada dalka haya ee kulmiye. waxayna yiraahdeen bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayyidina mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dadweynahan sharafta mudan inta badan milicda noo taagnaa kalgacaylka iyo xubbiga ay ka qabaan xisbiga kulmiye halkan u taagnaa aad iyo aad baanu idinka mahad celinaynaa aad iyo aad baanu idin soo dhaweynaynaa sida sharafta qiimaha qaayaha leh noo soo dhaweyseen aad iyo aad baanu soo dhaweynaynaa waxaan kaagu Balihiile was muujiseen waxa cadeysana codkiina kulmiye yahay waxa cadeysana cadaalad doonaysan waa Yaala Xasan Salebaan ayaa la biyam TV-ga caalamiga Somali News magaalada Burco.